Baro sida loo sameeyo caano boore adigoo gurigaaga jooga. Caanihii ayaa soo qaadaysaa dabka ayaa ku shubaysaa caanaha ilaa uu ka karkaro dabka ma ka dejinaysid oo waxaa la rabaa caanaha inuu karkaro sida mishaarida oo kale inuu noqdo. Kadib ayaa dabka ka qaadi kartaa. Wili caanaha dabka ayuu saaran yahay. Waad u jeedaan caanaha xumba ayuu xoogaa keenay. Waxaa la rabaa ilaa sida mishaarida oo kale inuu noqdo. caanaha markay noqdaan sida mishaarida oo kale khafiif, waxaad soo qaadanaysaa baaquli. Baaquligii ayaa ku shubanaysaa caanaha. Kadib haddana waxaa lagaa rabaa inaad soo qaadato saxan fidsan. Kadib caanaha ayaa ku fidinaysaa. Markaad saxanka ku fidiso caanaha 7 ilaa 8 saac ayaa caanaha qalajinaysaa oo waxaa la rabaa caanaha inuu xoogaa adkaado. xoogaa markuu adeeg noqdo caanaha waxaad samaynaysaa mindi ayaa soo qaadanaysaa ama qaado. caanaha ayaa fufujinaysaa. Kadib caanaha ayaa gacantaada ku burburinaysaa. kadib markaad caanaha gacantaada ku burburiso waxaa lagaa doonayaa in muddo 1 maalin ah aad dhigto iftiinka qoraxda. lama rabo inaad qorax dhigto, laakiin waxaa lagaa doonayaa inaad iftiinka qoraxda dhigto. 1 maalin markuu iftiinka qoraxda yaalay caanaha xoogaa wuxuu noqday mid caddaan ah. kadib caanaha ayaa soo qaadanaysaa waxaadna ku shubaysaa makiinada si aad u shiido caanaha. ugu dambayn caanaha wuu shiidmay, laakiin caano miiraan soo qaadanaynaa si aan ugu miirno caanaha aan weli shiidmin ama haraaga ah. markaan miirno kadib inta soo hartay oo aan si fiican u shiidmin ayaa haddana dib makiinada ugu shubaynaa si ay u shiidanto. ugu dambayn caano booraha waa diyaar. alxamdulilah. caanahan waxaa ku caddaysan kartaa shaaxa, gaxwada, waxaa doonta ayaa ku samayn kartaa waana cabi kartaa. waa caanihii oo lo'da.